السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا TV جيليس ونذينكو هينا وريسا انو كقادني قدوميها جبادة ودنيغا حورينتا وقادينيا محمد عمر عثمان مرو كسوغنا جيسكا أفريكا هذا هو وريسيغا waxaa noo soo gudbiyay wariyayna Maxamed Dawiil daawasho wacan. وعن وناسن داوديال dunida meel kasta oo aad naga daawanaysaan iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan halkani waa Ilays TV maanta barnaamijkeenan waxa aan ku wareysan doonaa haduu eebaha awoodda leh ogolaado gudoomiyaha jabada wadaniga xoreynta ogaadeynaya Admiral Maxamed Cumar Cismaan waxa aan ka wareysan doonaa ama aan weydiin doonaa su'aalo kala badan oo kala duwan guud ahaan laakiin aad ka heli doontaan xog muhiim ah aan ogolaadan oo aan halkan ku soo bandhigi doono gudoomiye kusoo dhaw Ilays TV mahadsanidin aad iyo aad baad ugu faraxsanahay in Ilays caawa chance ay siiso ay igu wareysato aad iyo aad baad mahadsantihiin gudoomiye wareen waxa laga weydiyo dhawaan waxaad socdaal soo kala bixisay qaar kamid ah wadamada Yurub muxuu ku saabsanaa socdaalkaasi ujeedadiisu maxay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sanadkii 2012 ayaa inoo dhamaaday jabhaduna waxay leedahay qorshayaal oo sanadla sanad walba markuu dhamaado waxa la hubiyaa qorshayaashii siday u fuleen qiimeyn baa lagu sameeyaa ama ha noqoto jaaliyadaha ama ha noqoto hogaamada iyo hay'adaha kala duwan ama ha noqoto ciidamada ama ha noqoto hay'adaha raacsan hogaamada kala duwan marka sanad walba markuu dhamaado waxa la sameeyaa kulamo waaweyn oo lagu qiimeynayo qorshayaashii la dejiyay siday u fuleen wixii fulay waxaan fulinaya sababaha ay u fuli waayeen heerkay ku fuleen wixii fulay heerku ku fulay waxa la fiiriyaa markii sanadku dhamaado dadweynaha yaa loo tagaa oo meelahooda loogu tagaa waxa la socodsiiyaa sanadkii tagay hawlihii halganka si u qabsoomeen dadweynuhuna waxyaabihii ay tabanayeen ama ay markaa dareenaha ay jeclaayeen inay madaxda weydiiyaan kulamada ku weydiiyaan maxay la dhaqanka jabhadu waxa weeye in wixii ama tala ama tusaale ama tabasho markii kulamada noocaas la isugu yimaado in la isweydiiyo haday dhaliil tahay halka kulamada la isku dhaliilo haday amaan tahay halka la isku amaano hadii qorshe laga gaabiyo ay tahay halka lagu sheego marka kulankani wuxuu ahaa ama socdaalkani wuxuu ahaa midkii sanadlaha ahaa ee caadada jabhada u ahayd anigu sida aad sheegayso waxaan tagay Yurub ayaan tagay gudoomiye ku-xigeenkii wuxuu tagay waqooyiga America ayuu tagay wali ku maqan yahay gudoomiyihii hogaanka abaabulka Koonfur Afrika ayuu tagay uu kormeer ku tagay Adani wuxuu tagay Australia ayuu tagay sulub iyo wafti kale uu hogaaminayo Kenya ay tageen yani sidaas la isu kala qaybiyay ujeedaduna mid bay ahayd taasna waxay ahayd qiimeynta sidii qorshayaashii sanadlaha ay u fuleen iyo halganka xaaladiisa guud sida heerka ay marayso in la qiimeeyo ayuu ujeedadu ahaa runtiina wali la isuma soo wada ururin markii la isu soo ururo yaa natiijadii waxa la soo arkay hawlwadeenku heerka uu joogo xubnaha iyo taageerayaashu heerka ay joogaan hogaamintu heerka ay tahay ku soo biirida halganku sida uu yahay gumaysiga iyo dhexgalka uu soo dhexgalay uu mataqaana dhulka uu ka hawlgalay sida uu yahay dhamaan waxaas oo dhan ayaa la qiimeyn doonaa ka bacdina waxay saldhig u noqon doonaan qiimeyntaasi qorshaha sanadka soo socda ayay saldhig u noqon doontaa oo halkaas laga qaadi doonaa waa tahay gudoomiye guud ahaan markaad isku soo duubto socdaaladii kala duwanaa adiga iyo madaxda ururka qaar ka mid ah aad kala bixiseen qaaradaha kala duwan ee dunida iyo dalal kala duwan
maxay tahay natiijada aad haysaan runtii ujeedadu waxay ahayd ugu weyn ama natiijada aanu hayno waxa weeye inaanu shacbigayagii meel uu joogaba inaanu u tagnay oo ciidamadiina waa dhaweyto sida aad la socotaan la qabtay shirweyne la qabtay ama shir ay ciidamada kasoo wada qayb galeen la qabtay oo iyaduna isla arintaa ku saabsanayd in aanu u tagnay bulshadayadii inaanu xaqiiqadeeda soo ogaanay wixii dhaliila ahaa ee dhacay inaanu soo ogaanay wixii wanaagii horukaca ee la gaadhay inaanu soo ogaanay in aanu haddana diyaar u nahay inaanu qorshahayagii sanadka ah aanu samaysanay annagoo ku kalsoon heerka la joogo marka waa natiijo aad iyo aad u wanaagsan baa yacni ay runtii hawluhu marhayaan aadna waan ugu faraxsanahay heerka la marhayo iyo sida halganku u socdo guud ahaanna sida yacni laysula wada socdo guda iyo dibadba ciidamo iyo bulsho sida laysu wada dhafan yahay aad iyo aad baanu raalli uga nahay waana natiijo fiican marka loo soo laabto kaadirka jabhadda faraha badan ee jabhadda taageersan gudaha iyo dibaddaba see looga faa'iidaysan karaa xoogga iyo maskaxda xuduudda kaadirkaas see looga faa'iidaysan karaa runtii halganka dee waxaa wada kaadarkiisa iyo howlwadeenka ayaa wada ama ha noqdo kaadar military oo ciidan ama ha noqdo kaadar siyaasadeed sida aad la socoto madaxdu waa in yaroo kooban weeye halgankuna wuu ballaaran yahay oo waxaa hadda runtii la yidhaahdaa jabhadan wadaniga ee xoreynta ogaadeynaya calankeeda gabalku kama dhaco oo adduunka oo dhan bay ku kala fidsan tahay jabhadda ogaadeynaya gudihiina xoog bay u joogtaa iyo dariska dadkaas oo dhan ama baaxadda intaa in la eg jabhadda leh waxaa wada howlwadeenka iyo kaadarkii abuurmay ee jabhaddu lahayd ayaa wada waxayna kaadarkaas uu ku socdaa qorshe degsan oo la og yahay bay ku socdaan waxayna higsanayaan oo mar walba ay raad raacayaan barnaamijkii siyaasiga ahaa ee ururku lahaa ayay mar walba raad raacayaan waxayna ku dhaqmahayaan oo mar walba ilaalinayaan oo xadidahaya socodkooda iyo tallaabadooda heerka ururku leeyahay marka kaadarkaasi wuxuu ku socdaa ama uu fulinayaa qorshaha ballaaran wuxuuna ku socdaa tubtii barnaamijka uu u jeexay waxayna ilaalinayaan nidaamkii iyo qorshihii iyo xeerka iyo asluubtii xeerka ayaa la ilaalinaya marka kaadarkaas ama ha noqdo mid military ama ha noqdo mid siyaasadeed waxa weeye waa busy aad iyo aad bay mashquul yihiin yani dhismo ururkani dhismo leeyahay wuxuu leeyahay madax wuxuu leeyahay ku-xigeenno wuxuu leeyahay jaaliyado wuxuu leeyahay mataqaanaa hay-ada iskor hoos yaala dhammaan hay-adahaas kala duwan waxaa wada waa kaadarkaas kaadarka jabhadan waa kaadar bislaaday runtii aad iyo aad u wanaagsan xag siyaasadeed aad buu uga bisil yahay xag diineed wuu ka bisil yahay xag wadaniyadeed aad iyo aad buu uga bisil yahay gumaysiga wuu og yahay waxa uu doonahayana wuu higsanayana wuu og yahay kaadar bisil weeye oo runtii yani aad iyo aad aan ugu kalsoonahay in uu ka soo baxayo waajibka iyo xilka saaran si wanaagsan uga soo baxay aanu aad ugu kalsoonahay marka kaadarkaasi waajibaadkii iyo qorshihii ururka ayuu fuliyaa dhinac kale gudoomiye haddii aan safaradiinii hore aan su-aal kale aan kaa weydiiyo africa koonfur africa iyo kenyaba oo africa isla ah wufuud baad u kala dirteen kala duwan waxaan ognahay africa inay ka duwan tahay qaaradaha kale iyo wadamada kale muxuu noqon karaa waxa idinka qabsoomi kara gaar ahaan africa horta africa waxa weeye waa saldhigayagii rasmiga ahaa waana qadiyadda ogaadeynaya dee meesha dhulkayagu uu ku yaalo dariskayagii uu joogo meesha ay dadkayagu ugu badan yihiin waa africa gaar ahaan geeska africa dadkayaga sida aad la socotaan aad iyo aad baa yani loogu dhibay dhulkii ogaadeynaya dadkii guryahoodii baa la gubay dadkii baa la laayay xabsiyadii baa laga buuxiyey way fakadeen way ka carareen dhulkii يعني dhulkiibay yani kas looga qaxiyey
saas daraadeed waad garanaysaa hadday dhulkoodii ka tageen inta badani waxay joogaan dariska ogaadeenaya ayay joogaan gaar ahaan Kenya, South Africa, Sudan, Uganda, Eritrea, dhulkaas dadka iyagu aad iyo aad buu joogaa. Marka dalal kale oo Afrikaana way joogaan dadka iyagu arda fara badan baa Sudan iyo Masar iyo Yemen iyo dhulkaas yaa jooga. Marka dadka iyagu dhulkaas ku kala baahsan yahay meesh kasta oo dadka iyagu joogan inaanu dhismaha iyo abaabulka ka galno oo ka sameeyno waa laga maarmaan. Marka Afrika waxay ka mid yihiin meelaha ay bulshadu joogto si fiican inaanu u abaabulno ay tahay, gacantana inaanu ku hayno ay tahay, siyaasadda ururkana inay ku socdaan ay tahay. Marka bulshadayada ama jaaliyadaha iyaga kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah kuwa Koonfurta Afrika iyo kuwa Kenya jooga ayaa ka mid ah. dadkaana mar walba mataqaanaa waa dad ku dhow dadkoodii iyo dalkoodii ku dhow dhibaatadu ay mar walba iyo dadkii gudaha laga soo ori ay mar walba ay saameyn gaar ay ku leeyihiin. Marka Afrika aad iyo aad bay mataqaanaa dadka iyaguna u joogaan qasabna aan ugu nahay inaanu mataqaanaa ummadayda halkaa joogto inaanu hogaamino oo aanu ku hogaamino ujeedadayada iyo qadiyadayadu waxay doonayso. waa tahay gudoomiye qadiyada aad ku dhufatay carabka idinku qadiyad baad u halgamaysaa marka qadiyad la eego qadiyad yaa sharixi kara yaa bandhigi kara oo gaarsiin kara heerkii ay rabtay horta runtii qadiyada marka ugu horeysa waxaa sharaxaya waxa ay tahay barnaamijka ururka wuxuu leeyahay barnaamij mabaadi asaasi ururku leeyahay himiluu leeyahay. marka waxaas oo dhan waxay ku yaalaan barnaamijka ururkuna dhammaantii waxaa yani shuruudaha ka mid ah qof waliba inuu si fiican u darso oo u dhuuxo oo u barto dokumentiga asaasiga ururku leeyahay oo ah barnaamijka iyo xeerka bulshadayadu. marka dhammaan way taqaanaa waxay higsanayaan qof kasta cid kasta uu la kulmo wuu u sharxi karaa. gaar ahaan ururku wuxuu leeyahay hoggaan arrimo dibadeed ayuu leeyahay. hoggaanka waajibaadkiisu waxa weeye inuu qadiyada ka dhaadhiciyo adduunweynaha inuu ka dhaadhiciyo. sida aad la socoto bulshadii reer Ogaadeenaya dibadahay wada joogta, aqoon-yahankii Ogaadeenaya dibadda u kacay. qof waliba meesha uu joogo sida ugu habboon ayuu ugu sharxayaa qadiyad ugu sharxayaa xaqnimadeeda, taariikhdeeda, waqtigii dhulkan la qabsaday, sidii loo qabsaday, sidii loo wareejiyay, dalka iyo dadka sida loola dhaqmo ummadda sida loola dhaqmo, xadgudubka lagu sameeyo, ciqaabaha ka jirta, xabsiyadooda, yani kaadarka aan ku leeyahay waa kaadar bisil oo badan. kaadarkaas sharaxa hoggaanka arrimaha dibadda sharaxa qof kasta oo reer Ogaadeenaya oo barnaamijka yaqaana ayaa sharxaya. si fiican baa loo sharxa waxa uu ururka iyagu u sii kobcayo u sii badanayo adduunka oo dhan ugu faafahayo. waxa weeye qof waliba awood wuxuu u leeyahay inuu sharxo qadiyadii oo adduunweynaha uu u sharxo, saxafiyiinta uu u sharxo, xuquuqul insaanka uu u sharxo, hay-adaha dawliga uu u sharxo. يعني سفيعاً بان وجولي سنة أرنتاس إنه أدوينها كنا علينا. وقتها قدومي لا كلام. لوان سنة كتير لما تكسي وده هذا الله بعد كوكاشين ذلك كينيا إذن كإيو دولة إثيوبيا. حاجة كودن بيه وده هذا لي. أردا وارون وده هذا الله بعد السنة كي دويتو ويدعين وحنا رنتي annaga urur ahaan waa barnaamijkii sidoo ku qoran mar walba diyaar baan u nahay haddii wada hadal rasmi ah oo daraf saddexaad uu ka qayb galahayo naloola yimaad inaanu ogolaano oo ka qayb galo diyaar baan mar walba u nahay. albaabka yagaas waa furaya. hase yeeshee Ethiopia muddo badan waxay ku dadaalaysay inaanu is aragno oo labadayadu aanu si qarsoodi isu aragno. arrintaana waa arrin ka soo horjeeda yani mabaadiida ururkayaga. saas daraadeed ma annaan ogolaanin annaga iyo Ethiopia si gaara inaanu si qarsoodi isu aragno waanu diidnay. Ethiopia dad fara badan oo adug Soomaali ah oo ama mas'uuliyiintii Soomaaliya ahayd ama dad reer Ogaadeenaya oo magac leh ayay soo adeegsatay oo soo dirtay
oo ay yidhaahdeen annaga iyo onelf aanu si gaar oo qarsooday isu aragno arrintaas nalama ayna qumanaan barnaamijka iyagana mayna waafaqsanaan waana u diidnay ugu dambeyntii Kenya u tagtay Kenya ay arrintaa ka codsatay Kenya arrintii way noola timid oo waxay yidhaahdeen Ethiopia waxay rabtaa inaad wada hadashaan annaguna aanu idin dhexdhexaadino waanu ogolaanay wafdi baanu u magacawnay heer sare ah oo ay madaxda ururka ay hogaaminayso runtii aad baan u xurmaynaynay dawladda arrintaas يعني مرتق جلينيسا iyo nidaamka dawliga ah ee wada hadalada aad iyo aad baan u tixgelinaynay waqtigii la ballamay iyo habkii lagu ballamay baanu yani meeshii lagu ballamay u nimid si fiican baanu qorshahayagii iyo ajendadayadii si inoogu muuqatay aanu u soo gudbinay waxa lagu heshiiyay annaga Ethiopia waxaanu ku heshiinay ajendadii shirku ama wixii laga wada hadli lahaa yaanu ku heshiinay qodobadii baanu ku wada heshiinay qodobadii lagu heshiiyay annaga oo onelf iyo dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya saddexdayadu waanu wada saxeexnay arrintii lagu heshiiyay markii la heshiiyay kulankii dambe ee ahayd in ajendadii qodobka koobaad laga bilaabo Ethiopia waxay la timid wax ka baxsan qodobadii lagu heshiiyay oo ah shuruud ana yani lagu yani ka hor dhaca aan ahayn shuruud aan kamid ahayn ajendadii bay Ethiopia la timid taasoo ah aynu wada hadal leh horta dastuurka ogolaada anaguna waxaan ajendada kuma jirto arrintaasi ajendadaynu ogolaanay ee saddexda qolo aynu isla saxeexnay kuma jirto arrin aan ajendada ku jirina ma ogolaanayno hadda inaanu mataqaana meesha la keeno Ethiopia way ku adkaysatay arrintii annaguna ma aanan ogolaanin Ethiopia waxa ay la timid ay dusha kala timid ee aan ajendadii ku jirin in aanu ka hadalno ma aanan ogolaanin shirkii halkiibu ku burburay iyagaana runtii u kasbaahayd oo dad aan lagu talagelin shirka inay ka mid ahaadaan iyo niman saraakiila oo janan ah oo markii hore ajendada dejinteeda aan kamid ah yaa meeshii arrintu runtii si dhab ah u dhabar wareema oo arrintii fashaliyay arrintii halkii bay ku fashashay halkii baana mataqaanaa ay ku dhamaatay oo lagu kala tagay ilaa haddana wax kale oo meeshii aanu ka hayno ma jiro halkaas ku dhamaatay dagaalkana waad sii wadaysaan annagu inta aanu yoolkayagii gaadhayno ogaadeyniyana gobonimo ay gaadhayso ama dadka ogaadeyniya ay aayahooda ka tashanayaan waanu wadaynaa waa tahay gudoomiye wada hadallada waxaan rabaa inaad noo sheegto danta ay dawladda Ethiopia ka leedahay ama ay ka lahayd wada hadalladan ay haatan ku baaqday anagu runtii waxaan u aragnaa Ethiopia waqti aad u qalafsan bay ku jirtaa oo madaxdeedii dalka hogaaminaysana ay ka baxeen madaxdan kalena ay qaybsan yihiin qoomiyad ahaanna loo qaybsan yahay siyaabo fara badanna loo qaybsan yahay Ethiopia waxay rabtaa markii hore qorshaheedu wuxuu ahaa in ay annaga ay ujeedadoodu ay tahay in ay kala jabiyaan oo intay wax aan micno lahayn intay ballan qaadaan dadka yaga qaaruu raaco iyo ujeedadeedu ahayd waxa ugu weyn waxay ahayd Ethiopia ka dhabmaynan ahayn maxaa yeelay waxaad ku garanaysaa inaynan ka dhabahayn wafdiga ka soo qayb gala ay u soo dirtay shirka wuxuu ahaa saraakiil janano iyo nabad sugidda wasaaradii gaashaandhigga waa wada hadalkii siyaasiga ahaa wafdiga loo soo diray wuxuu ahaa wasaaradda gaashaandhigga saraakiisheedii iyo wasaaradda gaashaandhigga securitykeedii buu ahaa nin diblomaasiya ama siyaasad ku lug leh oo arrintii shirka loo soo diray wafdiga loo soo diray kuma jira saas daraaddeed Ethiopia ma aynan yani daacad kama aynan ahayn wada hadalka daacad kama aynan ahayn ujeedadeeduna waxay ahayd inay ama waqti kasbato ama ay annaga nagu fashaliso labada aan bay ujeedadeedu ahayd aad iyo aadna waan u garanaynay inayna shirka wax ka soo baxaynayna
waxaa noo ahayd inoo caddayd runtii inayna waxba ka soo baxayn inkasta oonu si fiican ugu diyaar garownay annagu oo si rasmi ah oo dawli ah aan ugu diyaar garownay haddana waanu arkaynay inayna wax natiijo ayna halkaa ka imanayn idinku maxaad ka faa'iideen hadalladii way fashilmeen faa'iidada aad ka joogtaan hadda muxuu yahay maxay tahay kow annagu waxaanu ka faa'iidnay Ethiopia wax badan waxay sheegtay inaynan ONLF raalli ka ahayn in wada hadal ay gasho inayna ONLF ay diidayso adduunyada waxaanu tusnay inaanu raalli nahay oo aanu diyaar u nahay oo si hab dawli ah oo aad iyo aad u nadiif aanu diyaar u nahay ugana soo qayb galay in qadiyadantada adduunyada uu arkay oo la wada ogaaday oo yani adduunyuhu ogaaday waxa wax diidaya wax fashalinaya inayna ONLF ay Ethiopia tahay qadiyadii inay goob rasmi ah iyo miis dawli ah oo labadii dhinac ay siman yihiin la isugu yimaado oo ujeedadii ay taas ahayd marka faa'iidooyinkaas runtii yaa laakiin inayna natiijo ka imanaynin waanu garanaynay laakiin faa'iidooyin fara badan baa haddana aan laga helay waa tahay si kastaba hadda dunida iyo dawladaha idin dhexdhexaalinayay ee aad adigu carab ku dhufatay maxay tahay danta ay ka leeyihiin dawladaha iyo dunidu wada hadalkan idinka iyo Ethiopia idin dhexeeya adduunku meeshii hay-adahan dawliga iyo adduunyuhu yani meel kasta oo dhibaata ka jirto yani dan bay ka leeyihiin dano fara badan baa laga leeyahay oo danta ugu horeysa waxa weeye nabadgelyo in adduun ka dhacdo in meesha xasiloon ay ka dhacdo in meesha nabadgelyo laga helo nabadgelyo markii la heerano horumar laga helo waa ta ugu horeysa marka adduunyuhu wuxuu jecel yahay oo danta uu ka leeyahay tahay in geeska Afrika ay xasiloon ka dhacdo waxa la og yahay geeska Afrika inaynan xasiloon ka dhici karin ilaa qadiyada ogaadeen in la xaliyo inaan nabad ka dhici karin saldhiga iyo rab yani dhibaatooyinka geeska Afrika ka jira waxa weeye waa qadiyada ogaadeen adduunyuhu wuxuu jecel yahay in geeska Afrika nabad ay ka dhacdo isla markaa waxa la og yahay qadiyada ogaadeen oo la xalinay nabad dhacayn adduunyuhu marka aad buu daneynaya in qadiyada ogaadeen la xaliyo aad buu daneynaya marka adduunyuhu wuxuu daneynayaa in nabad geeska Afrika laga helo si taa loo helana in qadiyada ogaadeen xal loo helo adduunku saas u daneynaya annagu waxa weeye dadkay waa la gumaystaa ummad la gumaystaa aanu nahay oo waqtigii gumaysigan kada uu la qabsaday sidii loo qabsaday taariikhdii lagu qabsaday wixii oo dhan ay wada qoran yihiin ama Afrika kama duwanin Afrika xor bay heshay inaanu xornimo helo way ogaadeen in xornimo heshay way in wadadii United Nations ay u jeexday gumaysiga in laga baxo inaanu kaga baxno aad baan ugu dadaalay wada hadal inaanu kaga baxno iyo asaf garad Ethiopia ma garanayso wada hadal ama ma xurmaynayso wada hadal ama xuquuqda qowmiyaadku ay leeyihiin ma xurmaynayso qasabay ummadii reer ogaadeen ku noqotay ilaa muddo fog inaynan isdhiibin inay ka dagaalanto si xornimo ku gaadho halganka ogaadeen wuxuu halgan qori isu dhiiba jabhad ay soo dhiibto jabhadiyadu waxa weeye waa tii shanaad ama tii lixaad weeye inta wax isku hal yool bay jabhadahaasi lahaayeen waxa weeye shacbiga ogaadeen inuu aayihiisa ka tashto inuu gumaysigan Ethiopia ka xoroobo ayay ahayd warina tiibaa socota annagu taas aanu yani ku soconaa adduunyada waxaan ku codsanay inuu arrintan ugu taageero geeska Afrika nabad loo helo waxa lagu heliyaan waa qadiyada in hal loo helo gudoomiye siyaasadda wadamada dibadda ku xididaysatay ee ururka ONLF ee aad adigu gudoomiyaha u tahay waa xaqiiqo in raali laga yahay oo wadamada dibaddu ay raali ka yihiin maxay tahay laakiin waxaa la isweydiinayaa maxay tahay danta ay ka leeyihiin dowladahaas iyo dunidu caalamka horta sida aan kuu sheegay waxa weeye siyaasadda koobaad waxa weeye in geeska Afrika ay nabadi ka dhacdo talabaad waxa weeye ONLF si aad iyo aad u hufan oo u ilaalisa xuquuqda bani aadamka nidaamka dawliga ah ururka ONLF aad buu ilaaliyaa ama ha noqoto deriska ama ha noqoto bani aadamka ma mid Soomaaliya ha noqdo ama hatta shacbiga Ethiopia ha ahaade ONLF
aad bay u ilaalisaa xuquuqda bini aadamka xiriirka dawligaana aad bay u ilaalisaa ama ha noqdo hay-adaha dawliga ee dalkayaga jooga ama ha noqdo mataqaanaa dadka aanu dariska nahay ha ahaado aad iyo aad baanu qawaaniinta dawliga u ilaalinaa sida United Nationka iyo hay-adaha dawligii ay ugu talagaleen baanu u ilaalinaa saas daraadeed adduun weynuhu wax tarkiis wax kastaba ha ahaado laakiin aad iyo aad baa raali looga yahay ama yani loo jecel yahay nidaamka oo xuquuqdeeda ku raadsanayso aad iyo aad saas daraadeed wey waxa meel walba looga soo dhaweynayo shacbiga reer Ogaadeniya ma jiro adduunkaas qolo kamida oo hadda shacbiga reer Ogaadeniya ama jabhada hogaamisay oo nalaf la yiraahdo ay ka dhaxayso ama yani wax hurguf ah ka dhaxayso ama loo arkayo nidaamka dawliga waafaqsanayn in ONLF ay ku dhaqmayso wax rumaysan ma jiro nidaam wanaagsan bay ku socotaa ONLF saas baana adduun weynuhu in badan ku taageeraa annagu yoolkayagu waa mid yoolkayaguna wuxuu rumaysan yahay United Nationka iyo mabaadi'diisa asaasiga waxa weeye ummadayada aftiha laga qaado waxay doonaysaa marka iyadu ayaha ka tashato waana qawaaniinta dawliga ee United Nationka qodobada dhiban ta kale gumaysi inaanu ka baxno yaanu doonaynaa United Nationka qodobadiisa asaasiga ay kamid tahay principalka mabaadi'da asaasiga ee United Nationka ay ka baxday gumaysiga sidii looga bixi lahaa marka annagu mabaadi'da asaasiga ku socono yaanu haddana si nidaamsan oo dawli ah oo xuquuqdii inta kalena aanu ilaalinayno yaanu ugu soconaa waxa weeye wuxuu naga dhaxeeya dagaal askariga uniformka qaba ee Ethiopia iyo siyaasadda Ethiopia ma aha cid kale askariga uniformka qaba Ethiopiaanka iyo siyaasadda Ethiopia yaanu la dagaalansanay waa ha ahaatee laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dunida maxaad uga baahan tihiin dunida kamid baanu nahay mar haddaanu dunida kamid nahay wax badan baanu uga baahannahay wax badan baanu dunida uga baahannahay koow waxaa kamid inay qadiyadayada taageeraan inay qadiyadayada xaqnimadeeda inay taageeraan in Ethiopia lagu qasbo inay qawaaniinta dawliga u hoggaansato in shacabka reer Ogaadeniya una qabataynta laga qaado in ummadda reer Ogaadeniya xadgudubka iyo farxumaynta laga dhaafo in dadkaas reer Ogaadeniya inkastoo ay isku jiraan inay helaan yani xuquuqul insaanka mabaadi'da wixii asaasiga inay helaan shacabka reer Ogaadeniya inuu helo adduunku inuu waxa ka shaqeeyo inuu adduunku arinta yani gacan ka geystaan uga baahannahay taasaan u baahannahay gabadhu joogaa gudoomiye in badan baad soo halgamisay Ethiopia wada hadalay ku baaqday sanadkii tagay idinkuna waad aqbasheen waa la wada hadlay waan lagu kala tagay dadka iyo dalka Ogaadeniya dagaalkan uu sii socdaa dadka iyo dalka Ogaadeniya xal buu u baahan yahay muxuu noqonayaa xalku dadka iyo dalka Ogaadeniya xalkiisu muxuu noqonayaa xalku waa aad buu yani marka afka laga dhahayo waa dhib yar yahay waxa shacbiga reer Ogaadeniya in loo ogolaado inuu ay iska tashado xal kale ma jiro waxa shacbiga reer Ogaadeniya u dagaalamayo ma aha shacbiga reer Ogaadeniya wadooyin baa loo sameeyo telefono lagu hadlaa loo sameeyo dhulkii baa wax laga qabtayo waxba leedin ogol yahay mataqaana horumar baa jirayo waxa shacbiga reer Ogaadeniya doonayo ma aha waxaas shacbiga reer Ogaadeniya xornimo doonaya xornimadaana wuxuu doonaya inuu aayihiisa inuu ka tashado yuu doonaya dhibka oo dhan wax shacbi waana wax qawaaniinta dawliga ay rumaysan tahay mabaadi'da asaasiga United Nationku yaa saldhig waxa ah annaguna taas aanu ku baaqaynaa barnaamijkii siyaasiga taas ku dhisan yahay in shacbiga reer Ogaadeniya laga qaado afti aayihiisa inuu ka tashado hadduu doonayo ha ku noolaado hala noolaado Ethiopia hala noolaado hadduu doonayo ha ka xoroobo intaas ba yaanu runtii u halgamaynaa yoolkayaga asaasigana waa kaas marka waxa aanu doonayna waa taas taa haddii la helana mushkiladu halkii waa la gaarayaa haddaan taa la helin ummadda reer Ogaadeniya meel ay ka noqoto ama meel ay isku taagto ma joogto ummadda reer Ogaadeniya waa ka go'aan inay gaadho gobonnimadeeda halganka ilaa ay gobonnimadeeda gaadheen inayna joojin waa ka go'aan weey dhib kasta oo lagu sameeyana inaynan u rukuucin jilbaha inaynan u dhigin waa ka go'aan
way u adkaysan ummadda reer ogaadeen wayna socon ilaa ay gaadho mataqaana yoolkii ay higsanaysa ama ay qorshaysatay ilaa ay ka gaadho way socon marka natiijada iyo halka la gaarayo waa kaa inuu noqdo si kale oo mataqaana wax kale oo xal lagu gaarayo ma jiro waa tahay gudoomiye su'aal kale haddaad go'daan ogaadeenaya ay noqoto dal gaar ah Ethiopia ma la yeelan doontaan xiriir haddaad la yeelataan xiriirka aad yeelan doontaan muxuu noqon doonaa horta ogaadeenaya waa dal barwaaqo ah dad baa yidhaahda haddaad go'daan ma noolaan kartaan ogaadeen waa barwaaqo ummad yani dhul ahaan waa dhul weyn aad iyo u weyn dadkiisu waa dad fara badan oo badan khayraadkiisu kuwa dahsoon iyo kuwa banaanka yaalaba aad bay u badan yihiin ama ha noqdeen banaanka khayraad yaalla ama ha noqdeen khayraad dahsoon waa dhul barwaaqo ah aad iyo aad buu dhulka iyagu barwaaqo u yahay dadka iyaguna wuu ku filan yahay waa dad yani badan dhulka iyaguna dhul ballaaran marka dawlad aad u xoog badan oo aad u barwaaqo badan ayaanu noqonaynaa horta haddaanu go'no waa kow talabaad Ethiopia haddii aanu ka goono oo ay intay ogolaato qawaaniinta dawliga shacbiga reer ogaadeen intoo afti laga qaado oo ayahiisa ka tasho uu banaanka istaago Ethiopia waxay noqonaysaa dadka dariska ah yaanu isugu dhownahay ayay noqonaysaa si wanaagsan waanu wada dhaqmaynaa xiriir sokeeye oo wanaagsan baanu yeelanaynaa waa haddii aanu mataqaana ay ogolaato in shacbiga iyaga intii afti laga qaado ay xornimadiisa gaadhaan darisnimo wanaagsan baanu ku wada noolaan doonaa haddii alla yidhaahdo sida dadka kale ee dariska aba darisnimo wanaagsan aanu u wada noolaan doono marka waxa kaliya ee na kala xira ama annaga Ethiopia na kala haya waxa weeye waa gumaysiga Ethiopia aragtideeda inay gumaysata ay doonayso taas haddii laga baxo Ethiopia daris wanaagsan baan noqonaynaa daris wanaagsan baan noqonaynaa guud ahaan gudoomiye waraysigan gabagaba jooga su'aasha ugu dambaysa waxaan rabaa fursad inaan ku siiyo aad ku dardaarmayso maxay tahay muxuu noqonayaa dardaaranka aad kula dardaarmayso shacbiga Soomaalida ogaadeen ee gumaysiga ku hoos jira iyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ee guud ahaanteed ee adigu aad gudoomiyaha waxaynu shacbiga reer ogaadeenaya horta ugu horreyntii aad baan u ammaanayaa geesinimadiisa iyo adkaysigiisa iyo ka run sheegidda ballankii ay qaadeen ay ka run sheegeen ay leeyihiin gobonnimada wax aan ahayn oo yani na deeqahaya ma jiro aad iyo aad baan ugu ammaanayaa tallaabadaa hore haddana waxaan shacbiga reer ogaadeen aan leeyahay meel aad u wanaagsan baynu maraynaa meel fiican baynu maraynaa xag ciidan xag abaabul iyo diyaar garow bulshadeed meel fiican baynu maraynaa gudo iyo dibadba siyaasad dibadeed meel fiican baynu maraynaa qadiyadeeni qadiyad caalami ayay hadda noqotay gumaysigii inala dagaalamahayay aad iyo aad buu u liitaa siyaasad ahaan buu liitaa aad buu u kala jajaban yahay khilaafaad fara badan baa dhexdiisa yaala waxa weeye inagu meel fiican baynu maraynaa laakiin yoolkeeni ma aynaan weli gaadhin yoolkeenana waxaynu ku gaadhaynaa midnimo iyo adkaysi midnimo aynu qadiyada u midowno adkaysi aynu u adkaysano dhibaatooyinka ina soo gaarayo gumaysiga xaqiisa inaga soo gaarayo inaynu u adkaysano yaynu yoolkeena ku gaaraynaa ciidamadeenu inay waajibaadkooda si adag ay u fuliyaan shacbiga reer ogaadeen inuu ciidamadii sidii loogu talagalay oo u taageero bulshada dibadiihi inaynan mar walba ay ogaato in ay loo baahan yahay oo ku xidhnaadaan gudaha ogaadeen ay ku xidhnaadaan ciidamada iyo bulshada gudaha iyo siyaasadda dibadda inay isku xidhnaadaan qadiyadeena inaynu adduun weynaha ka dhaadhicino si gar ah oo xaq ah inaynu adduun weynaha qadiyadeena uga dhaadhicino aynu ugu baaqno in qadiyadda ogaadeeniya la xalliyo adduun weynaha waxaan ugu baaqaynaa in shacbiga reer ogaadeenaya xadgudubyada siyaadada ee lagu hayo in laga daayo cunaqabataynta in shacbiga ogaadeenaya laga qaado in mataqaanaa
faraxumaynta iyo dhaqan xumida xadgudubka ee adduunka meelay ka dhacda ayna jirin ee shacbiga ogaadayna lagu hayo in adduun weynuhu arrintaa uu wax ka qabto ayaan ugu baaqaynaa. halkaa waxay noogu dhamaaday waraysigii gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya. haddaba intaan mar dambe hawada ku kulmayna waa anigoo dhiiran iyo dhammaan bahda Ilays oo idinkaga tagayna. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.